بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي بaa maalle marka hore inaan halkan soo joogsano anigii madaxda qale qaranka heer gobol iyo heer degmo halkan soo gaadhno wax kasta oo dhacaba qadarka Allah ku dhacaa. halkan maanta aan joognaay waa suuqii wadnaha caasimadda Hargeysa oo waqti 6 sano ka hor la dhisay dhowr iyo 6 sanana ama 7 sanana soo dhismayay halkii laga bilaabay laga unkay suuqa Hargeysa ahayd qadar baa dhacay ku dhacay bishan aan ku jirno kowdeedii dab iyo masiibaan la filay baa ka dhacday. dhib kasta oo dhacdana haddana waxay leedahay xalkeeda. waad la socoteen in gurmad adag laga galay wixii la qadaray la joojin kari waayay baa iyadoo wax nafay maanta nasiib wanaag ayna dad inaga dhimanin wixii alla ugu qadaray hanti dibadtaale iyo taaqab hoostaaliba yaa ku gubatay. runtii maanta wada ka arkayo waxaynu maraynaa in nadiifintiisii iyadoo dadkii maartay loo wado meelo loogu talagalay ku sii ganacsadaan muddo ku meel gaara oo kala duwan ay xukuumaddu u diyaarisay 6 meelood oo kala duwan oo iminka soo kormeernay oo shaqooyinkii socdaan oo suuqyada la dhisayo. tallaabada kale waxay noqotay wixii dhibaato suuqii gubtay dumay oo culayska inta laga arkaysaan in isna la bilaabo in la nadiifiyo maalinta saddexaad la marayo. runtii iyadoo aad iyo aad ugu mahadnaqayo runtii guddiga madaxweynuhu magacaabay gurmadka waaheen oo guddoomiye yahay wasiirkeena diinta iyo qaafta ay ka mid yahay maayarka degmada Hargeysa golaha deegaanka Hargeysa guddoomiyaha gobolka Baroodijeex wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo guddoomiyaha jaambarka. runtii hawl aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa inkaan ummadda u mahadnaqin ilaahayna u mahadnaqo hawl weyn runtii iyo dhowr toban cash ku dhacday qabteen. saa la socotaan waxaan maanta masiibo ka soo dhacaaday dhan kale oo wax ka jira ay ka yeelato saameyn taban ka yeelato. hawshan waxay saameyn taban ka yeelatay in caalamkii oo dhan inoogu midoobo oo inaga wada tacsiyadeeyo oo inala murugoodo caalamka oo dhan dhammaan siduu dhan yahay inoogu midoobo sidii laynoo garab joogsan lahaa ee wax laynoola qaban lahaa ee dib suuqii Hargeysa laynoola dhisi lahaa ee dib dhaqaale kab dadkii hantidu ka baabaaday loo kabi lahaa. adduunyada oo dhan baa inoo midowday. mar haddii adduunyada inoo midowday waxaynu u baahannahay haddaynu ummadda reer Somaliland nahay innaguna inaan sidaa ummaddii adduunyada bay noogu midowday inay innaguna maanta u midowno oo cidda wixii hawsha loo xil saaray aan ku ixtiraamno oo aynu nin walba oo mas-uul inaga mid ah qaranka Somaliland aanan hawshani la farafarayn wax kaloo dana gaara laga raadin dana siyaasadeed laga raadin lagu garab istaago kolba ciddii hawsha loo igmado oo dadkeena dhibaato ku dhacday ee sidii kale u murugaysan ee hantidiisii baabaaday in haddana dhagaha laga wasakhayninoo lagu dulmurmin ama waxayna dhagow jecelayn la soo qaadqaadin. war bir Ramadaan baan joognaa ummadda reer Somaliland madaxdiinahay ilaahay baa idinku dhaarinay bir Ramadaan baan joognaaye waxaanan danteena ahayn iyo wanaag halkaas sidii loo hagaajinayo iyo sidii ummaddii dhibaato ku dhacay loo tariyaan iyo ka wada fikirnaaye wax intaa dheer ninka dhex wado waxaa la oran jiray qoodhay xiradaaba jabtay ninka maanta hawshan wax kala haro iyo Soomaaliku ma amaay jirtay. waxaan leenahay hadday tahay xukuumad hadday tahay macaarif hadday cid dhammaanteen mas'uuliin wada qaran baan nahay. waxaan aanu leeyahay walaalahayo in waxa laga daayo wax yar oo gaar oo dhex wado dana gaar oo dhex wado in la dhex wado iyo dana siyaasadeed midna looma baahna. waxaan ummadda reer Somaliland ugu baaqaynaa in hawshan u midowno sidaa caalamkii dhan aynu ka mid ahayn adduunyadii ay noogu midowday maanta ee af walba lagaga hadlayo dhibaatadii ka dhacday suuqa maartay Hargeysa iyo baabaa ku dhacay suuqeen waaheen. waxaan runtii halkan ka tacsiyadeynayaa dhammaan dadkii maartay hantidooda ku waayey
إلهي قلبي هيني قوتيو عوض حوق إن شاء الله وأهل دونتين تذكير وحيني مقان قرنكيني بيني مقان تذكيري بيني مقان علوشة أذكيه وأن آد بيني كتعسينا لبس عضي آد بيني كتعسينا ذكي لبس كل عضي هندل قاتان مدة كوبان إن شاء الله وين جيت بكتاب قاعد كتاين إن مالها الله استيانو ديا جروبان ونا دل قاتان كنا سمران أنت سوق غودي إن شاء الله سوق كون أكسن وروح بدن الله ديار دونا إن شاء الله السمران مع الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu joognaa beertii xorriyadda mudane madaxweyne halkan waxaynu ka wadnaa halkii laga dhisi lahaa suuqyada tembereeriga ee dadkii bacalayaashu ay ka gubteen meheradaheennii suuqa markaan waxaan diyaarinay birtii baan diyaarinay guud ahaan birihii baan imkaan diyaarinaynaa deetana kadib wixii shaqadii kalena ku xigaysaayo waa lagu xidhayaa intii kale u harsanayd birtu way noo wada diyaarsan tahay labada gooboodba leenka biliiska iyo beerta xorriyaddaba way noo wada gogoosantay shaqaduna way socotaa halkana birtii laynoogu diyaarinayaa intii kalena inoo diyaarsaneedna waa tana maanta aanu shubaynaa استقول رخصيها بدنا إن شاء الله وينور دمان سعدي لها كله مدده وقوة إن شاء الله وحويان هلك واحد نقول تلاقى الله وحويان دور بيلدين ويان وبيلديننا كله دون أو محن كله هذاي لصوّد كله شوي أو كله دون وقضي هلك دتكم مريين لا أو محن كله هذاي لا نريد دتكم مريين يو محن كله هذاي بيشوف كودي وحود النودينهين وقضي كوجا نحسن كران نصير في عن الله كوجا نحسن كران مدده يكون شقي سن كران أي نقول تلاقى لنا كرجنا مدحين إن شاء الله halkan waxa weeye xirashadii hore oo markii dambe dhalinyaro sports oo hayday kubad ku ciyaar jireen maanta waxaynu ka dhisaynaa 3 hangar oo lagu xiranayo loogu talagalay markii hore dadkii wadada laga qaaday wadadan tala soontay wadada dheer wadnaha marta dhismuhu waxa weeye 3 hangar suuliyadoodii iyo security roomkii wadadii loogu talagalay markii hore laba bilood baahayd oo emergency-ga uu ka horeeyay kontraagu balse markii xaaladana degdeg ay noqotay insha Allah waxaan ku dhameynaa waqti kooban ku soo dhawaada mudane madaxweyne iyo guud ahaan iyo saacadda wasiir dhamaantiin insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan habeen iyo maalmo shaqeyno shirkadda Billar waxay ka go'aan inay waqti tayale ay ku dhamayso oo quality waqtiga loogu talagalay waqti ka kooban isla markaana iyadoo aan tayadii loogu talagalay compromise ka galin oo sidii u fulinaysa insha Allah habeen iyo maalmo baan shaqeynaynaa caaw haddii noogu timaadaan iyadoo anagoo shaqeynaa noo marsan maayir iyo madaxda kale dawladda aad baan idin soo dhaweynaa